السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وأسماؤه. waxaan kaga hadlaynaa mawlidka nabiga goordhashadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo nasabkiisii iyo asmaadiisii magacyadiisii labadaba. can qaysin waxaa laga wariyay binu maqramata radiallahu canhu qaala wuxuu welidtu waa lay dhalay aniga waa lay dhalay wa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayna waa la dhalay caamal fiili sanadkii maroodigaa nala dhalo. waxaa jiray sanad lagu soo duuliyey kacbada oo nin abrahaama la yiraahdo iyo ciidankiisa ay kusoo duuleen. marka mar gaarsiin looga hadla maana waa muuqaal dheer. suuradda waxaan kusoo degtay alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabil fiil. marka aayaddaas suuraddaasa kusoo degtay iyo aayadaha ku dhex jira. marka si gaaran uga hadli doonaa haddii ilaahay waqti noo siiyee. marka wuxuu leeyahay saxaabigan qays, aniga iyo nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa nala dhalay caamal fiil baan nala dhala. wasaala wuxuu weydiiyey cuthmaan bin cafaan qubaatha binu ashyam binu laythin wuxuu weydiiyey radiallahu canhu dhammaan allah ka raali noqdee, a anta adiga qubaatha miyaa akbaru weyn am rasuulullahi sala allahu alay slm miyaa weyn? rasuulka ilaahay baa weyn mase adiga? faqaala wuxuu yihi qubaath, rasuulullahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay baa weyn. faqaala rasuulullahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay baa akbaru minii iga weyn wa ana aqdamu minhu, laakiin anaa ka dhalasho horreeyey fil miilaadi xagga dhalashada. welida waa la dhalay rasuulullahi sal caamal fiili wey. wa rafacad way qaaday bii aniga hooyadii way qaaday calaa mawdici booskii bay iga qaaday calaa mawdicil fiili booskii markii maroodiga bay iga qaaday. wa ra-aytu waxaan arkay, marka calaa mawdici weye xadiis mute, laakiin mawdicaas macnaa mudaafa u qadarano mawdicil fiili wey. calaa mawdicil fiili booskii maroodiga iga qaaday. wa ra-aytu waxaan arkay kharkhalal fiili rawthal fiili waxa weye maroodiga digadiisii ma arkay weye. akhtara muxiilan xaalay tahay mid doorsoontay wey. rawaahumaa waxaa wariyay labada xadiis ba at-Tirmidhi bisanadin xasan wey. halkaa marka wuxuu kaga soo baxay nabiga dhalashadiisa caleyhi salaatu wasalaam, macnaa goortuu dhashay. haddana wuxuu guda gelayaa nasabkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam. amaa nasabuhu nabiga nasabkiisa caleyhi salaatu wasalaam, amaa nasabu nabiyi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi huwa maxamedun wey. nabigu isimkiisii ka bilaabay sala allahu calay wasalam ibnu cabdillaahi ah awowii nabiga aabihiis caleyhi salaatu wasalaam. ibnu cabdilmudalib nabiga aabihiis buu haddana sheegay cabdilmudalib ah nabiga awowgi wey. ibnu haashim ahaa. ibnu cabdimunaafin ahaa. binu qusayi ahaa. binu kilaab ahaa qusayigaasoo. binu murata kilaabkaasoo inay mura ahaa. binu kacbin murahaasoo ina kacb ahaa. binu lu-ayi kacabkii ina lu-ayi ahaa. binu qaalibin lu-ayigii ina qaalib ahaa. binu fihrin ina qaalibkaasoo ina fihrin ahaa. binu maalikin ina maalik ahaa. binu nadrin ina nadri ahaa maalikkaasuna. binu kinaanata nadrigaasoo ina kinaana asna ah. binu khusayma kinaana ina khusayma wey. binu mudrikata ahaa. ibni ilyaasi ahaa. ibni mudari ahaa ilyaaskaasoo. ibni mudari binu nazaari ibni macdi ibni cadnaan waa intaasuu kugu tiriyo nabiga caleyhi salaatu wasalaam. halkaasna nabiga awoyaashiis yaabiisu halkaas ka galay. رواه البخاري ووريي
can Jubayrin waxaa laga wariy halkan wuxuu ka geliyaa nebiga asmaadiisa. halka xadiis wuxuu kaga soo kaaftoomay nebiga nasabkiisa. awalna waxaan kasoo baxnay nebiga goordhashadiisa. can Jubayr ibni mudcim waxaa laga wariy radiyallahu canhu can nabi sallallahu alayhi wasallam waxaa ka wariyey qaala lii nebigu wuxuu yiri lii qaala nebigu inuu yiri lii waxaa aniga ii sugnaaday 5 asmaa'in 5 magac baa ii sugnaaday. anigu maxamedu baan ahay, wa ana axmedu baan ahay, wa ana almaaxi kii tirtirayay baan ahay. marka nebigu waa fasiray maxaa tirtiraysa. wuxuu tirtirayay nebigu calayhi salaatu wasalaam sharaxaya alladii kii baan ahay yamxu llaahu ilaahay uu tiraayo biya sababtay alkufra kufriga uu tiraayay. wa ana alxaashiru kii soo xashirinayay baa soo kulminayay baana dadka maalinka yawma alqiyaamo. alladii xaashirkii baan ahay yuxsharu naasu dadka waa lasoo kulminayaa calaa qadamii lugtayda lugahayga wey calaa qadamiya lugahayga macnaha hoostayda la keenaya. wa ana alcaaqib kii dambeeyey baana khaatimkii wey. rawaahu shaykhaan waltirmidiyu. wa abu muusa waxaa laga wariyey waqaala abu muusa wuxuu weri alashcari waxaa laga wariyey radiyallahu canhu. abu muusa alcashcari wey abu xasan alcashari awowgiis weye. kaana rasuulullahi sal alay slam wuxuu ahaa yusamii mid ku magacaaba lanaa mid noo magacaaba nafsa naftiisa mid ku magacaaba asmaa'an asmaa ku magacaaba. faqaala nebigu wuxuu dhihi jiray ana maxamedu baan ahay, wa axmedu baan ahay, walmuqafi baan ahay midkii dambeeyey baan ahay, walxaashiru baan ahay xaashirkiisii hore noogu soo sharaxayoo dadka ilaahay usoo xashirinayay wey lugihiisa ee dadka la keenaya. yacni waxaa laga wadaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay shafaacatul-cudmaasa dadkao dhan marka baahida ay usoo qabaan iyo u imaanshaha dadku u imaanayaan yaa waxaa leeyahay nebiga hoostiisay yimaadeen baahashada marka xashrigaas dadkaas waa isagaa loo keeyay dadka dhan baa imaanaya markaasaa leeyahay isagiiba dadkiina soo xashriyo kale. laakiin xaqiiqatan qofka wax soo xashirinaya ilaahay wey subxaanahu watacaala waa yahay. walxaashiru wey midka loo soo walxaashiru baan kii soo kulminayay. wa nabiyu towbati nebigii towbadaan ahay. wa nabiyu